بس انت ليش ساعدتيني يا امي؟ اللي عندي اراهم بلي كتبنا عنها والدنيا ديما ماشي. kani ma aha barnaamij caadi ah mase aha barnaamij madadaalo kuwaasoo badanaa rabadaanta camirta shaashadaha balse kani waa mid kaga duwan barnaamijyada kale ee baxa bisha barakaysan ee rabadaan dhanka bani'aadantinimada iyo caawinta dadka tabaalaysan ee duruufaha la nool isagoo si hagar la'aana u guta kaalmada dhanka waxtarka insaanka sidoo kalena xaqiijinaya saameyn aan caadi ahayn iyo taageero ballaadhan oo loo wada hayo ayuu bishan rabadaan ee aynu iminka ku guda jirno galay sanadkiisii isagoo markii ugu horeysay laga sii daayay TV-ga 2018 wiil dhalinyaro oo ka soo jeeda wadanka Imaaraadka kaasoo muuqaalkiisa oo dhameystiran marna aanu ka soo muuqan shaashada TV-ga ayaa barnaamijkan garwadeen ka soona bandhiga xaaladaha kala duwan ee dadka tabaalaysan ee uu bil kasta oo rabadaan ah caawiyo barnaamijkan oo la magac baxay idma qalbi ayaa ah mid ka baxa channelka Budabay saacadu marka ay tahay 5 galabnimo barnaamijkan ayaa ujeedadiisu tahay inuu gargaar bani'aadamnimo u fidiyo dadka baahan ee ku nool dhammaan wadamada Carabta Qays al-Imaaraati oo isagu ah qofka caawimada fidiya ama sabixiya isagoo gacan saar ka helaya bisha cas ee wadanka Imaaraadka ayaa shakhsi walba oo tabaalaysan gurigiisa ama booskiisa shaqo ugu taga si uu u caawiyo mana muujiyo haba yaraatay inta lagu guda jiro barnaamijka wajigiisa si ay diiradda daawadayaashu kaliya u qabato xaaladda qofkaasi ku jiro sidoo kalena mowqifku uu saameyn u yeesho meeshana ay uga baxdo caanimo raadintu halku dhaga barnaamijkan ayaa annaasu linnaas oo macnaheedu yahay dadku iyaga ayaa isuran barnaamijkan waxaa lagu caawiyaa boqolaal qoys ilaa intii uu socday oo iminka ka badan 2 sano wuxuu doonayaa inuu dhammaystirto safarkiisa samafalada ee sanadkan kaasoo lagu kafaalo qaadi doono 10,000 oo iyagoo agoon ah sidoo kalena wuxuu qorshihiisu yahay inuu caawiyo 10 qof oo iyana balwadaystayaal dhibana oo ah daroogada haddaba iyadoo la wada ogsoon yahay inuu yahay barnaamijkan mid ka maran siyaasad iyo wax xidhiidh la leh haddana kama nabadgelin dhaleecaynta bulshada qaar iyadoo aad moodid in dad badani isku dayayaan inay siyaasadeeyaan barnaamijkaas isla markaana ay indhaha ka qarsadaan samafalka wiilkan dhalinyarada ahi ku badbaadinayo dad badan oo la ildaran duruufaha nolosha hadalhayntii ugu badnayd ee barnaamijkan ayaa timi kadib markii uu yimi magaalada Hargeysa iyadoo ay dad badani ka falceliyeen isla markaana ay ka biyadiideen in Hargeysa uu ku tilmaamo magaalo Soomaaliya ka tirsan qaar kalena waxay u arkeen inuu yahay barnaamij qowmiyadeed aan Carabta dhaafsiisnayn kadib markii uu deeq caawimo ah ku guddoonsiiyay magaalada Hargeysa haweeney qaxoonti ah oo u dhalatay wadanka Yemen iyagoo munaasib u arkay in deeqdaas ay mudnayd in la siiyo qof Soomaali ah balse isku soo wada duuba barnaamijkan ayaa tusaale iyo dhiirigelinba u ah waxtarka dadka tabaalaysan sidoo kalena ceebihiisu ay yaraanayaan marka loo eego qiimaha uu xambaarsan yahay asani daawade waa diyaarintii Cabdi Casiis Axmed Xaashi iyo tabintii Cabdiraxmaan Nuux Xaaji Maxamed